ina yar baan ahaa da'dayda waxba hadda sheegi maayo waxaad artaan isku geegeysaan inaad soo saarta waxay ahayd 1972 intiinaan badankii ma idnaa dhalan waxaan u imid meel aan ka bilaabo maan aqoon inta lacag la soo siiyo xoogaa wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa la yidhi Hargeysa tago af Soomaaliya markii lagu dhawaaqay weeye waxaad ka soo qabataa laba nin qowdan ducaale iyo faarax nuur hadda waa kii idin sheegay qowdan ducaale iyo faarax nuur qora ay yihiin ma aqaanano mana danayntiin waagaas dadku inay niman gabyaa ahaayeen wuxoodii la qorayo oo la keenayo ayaa la igu soo diray Hargeysa markaan imid si aan ku ogaaday adigu waan ogaaday inay isaaq yihiin laakiin dan laga lahaa oo kale hatta buugga ku qori maysid qowdan oo isaaqa ma oranaysid ama qowdan oo ciida galaa lama ogolayn waxaan la ii tilmaamay oday la yiri ninkaasa ciida gala aad u yaqaan arrimihiisa oo qowdan ducaale waa cabdiwalaabahan hadda yaala oo xoog ah markaas cabdiwalaabe wuxuu ii keenay maxamed cabdille oran jiray oo biyiga ka keenay isaga iyo haddii alla kuu rabaya nin la oran jiray nuur maxamed laangare la oran jiray isna maxaa iga gidhiisha gabayga ahaan geeraarkii ahaan ninka lahaawey beerta xorriyadda hotel yaroo ku yaalo 26 juun la yidhaahdo ayaan degay weli markaa ma gaarin oriental baan u soo wareegi doonaa lacagtu iguma filayn aan ku dego oriental bil baana haystaa waqti labadii nin markaan dhameeyay cabdiwaraaba ku soo noqdo markaasaan waxay labadii nin waa ka dhamaystay gabayadii waa ka duubay faarax nuur baa yahay suuqina kace maxaa leeyahay har wanaago hilib waa weyn laga cunaayo iyo baruur buu intay dhaxgeeyay wuxuu yiri waryaar arabow warninkaani wuxuu doonayay qowdan ducaale iyo faarax nuur anagu qowdan waa u sheegnay waxay seeday u sheegay marka anigu waa yaryaraado yani arma lagu xiraabaan leeyahay mogtahay laakiin isagu dan kama lahayn lamana xirin horta Hargeysa markaas ay ugu horeysay markii dambe oo aan midna markii waxay igu horeysay markii lagu dhawaaqay af Soomaaliga oo la yiri intaan reer baadiyaha la qaban oo la aadin horta reer magaalka hal la baro afka farta sida loo qoro afka cidna cid bari mayne afku markaa waa ladnaa oo ma ahayn sida maanta yaa ma ahayn markaa waxa muhiim ahayd waxay weeye in farta la baro dadka markaa kormeer baan aniga nin kale oo madax ii ahaayo Axmed Ashkir Bootaan la oran jiray naloo soo diray oo inaan markaasaan ku wadnay ilaa Berbera Boorama iyo hadda la kormeer dhulkan baan naloo soo diray Calayax markaasna waa imid buugayga aan ugu jeclahay oo aan haddii la ku rooyahay oo ku saabsan Ismaaciil Mire oo aan ka qoray 74 meesha aan ku dhameeyay waa Hargeysa iyaduna bororta taa qabsado orientalka ay ahayd dadaan ku saxay inta markaan ka soo baxo marka waxaan leeyahay maanta af Soomaaligii meelaha uu ku haray ayaa waqooyi ka mid yahay dhulkaan aan joogno ayuu ka mid yahay waxaa la doonayaa marka in loo guntado gobollada kale oo aan arkay waxa aan ku arkay baan ku arkay laakiin oo aan ka filayn waxaan waayay hal meherad oo af Soomaali ku dhigan oo wada Ingiriis sidee baad carruurtiina uga dhaadhicinaysaan inay afkooda ku faanaan oo jeclaystaan haddaynan ku barbaarin markay yar yihiin anaga waxaan la baray waagaan yaryarayn in af Soomaaligu ka fiican yahay afafka kale oo dhan inuu ka baraaqisan yahay carabiga iska wadaaf adu afafka kale waa qab laakiin cidna waxay buruuf garaysay ma ah laakiin qab bay ahayd ilaa nin raggii af Soomaaliga aad ugu dhaganaa nin ka mid ah oo waagi dambe madax noqday markii horena SYL ahaa waxaa la oran jiray Cabdilcasiis inuu xirsi wuxuu yiri magacayga saddexdu carabi weeye saddexdaba Soomaali baan ka dhigayaa ومحد ورانيسا عبد العزيز waxaa oranayaa bidawaaq ilaahi bidihi ilaahi bidawaaq waaq waa ilaahi Soomaalidu lahayd intaysa muslimka noqon
marka bidawaaq iyo cabdilcasiis waa isku mid nuur wuxuu yidhi xirsi nuur wuxuu yidhi ifiye bidawaaq ifiye xirsina wuxuu yidhi qardhaas markaa uu yidhi bidawaaq ifiye qardhaas baa magacayga la yidhaahdaa maanta kadib waxay muujinaysaa yani sida loogu dheganaa afka maanta waxaa moodaa in laga faanayo soomaalida waxaa isku xirayaa oo de hadda yani weli ay isku haysataa waxa weeye waa suugaanta ay wada jeceshahay oo dhaxalka ah iyo af soomaaliga waa kii hadda sheegayay maxamed bedel oo lahaa raxaweynti baa la yidhi afkiinu waa gaal waxay cidda tirina waa naqaanaa oo hadda cid soomaali dan kale ma aha waxaas adduunka waxaa dhibay iyo afrika soomaali waa isku diin oo waa isku af oo waa isku dhaqan oo waa isku hiddo oo waxaasaa dhibay afrikana lagama helo dad saas kama jiraan kenya waxaa jooga 42 qabiil mid baa soomaali ah 42kaas soomaalidu waa hal qabiil kenya ma aha qabaa'il kale ma aha waxay nooga fiican yihiin laakiin hal qabiil markay yihiin 42kaasi hoos uma sarrifmaan oo kikuyo waa kikuyo wax cid kale ma noqoto waa isugu mid innagu haddaan saa ahaan lahayn ma ficnaan lahayn baan isiraahdaa mararka qaarkoodo waaba la heshiin lahay oo dadkan wada dagaalamayo oo markii mid jagal loo dhiibo lahaado kaas ahaa waa reer hebel baa la siiyey hadduu reer hebel yahay dee reer hebelka hoose ma aha marka dhibaatada halkaa ka jirtaana waa qabyaalada weeye oo dhibaataa naga haysata anigana waa isoo gaadhaa maalin kasta sida raggana sheegayo dadki qabiil baa lagu anqariyey weli waagi hore waxaan oran jiray dadka waayeelkaaba qabiilka ayaa ku faran ilaahay amarkii dhalinyarada baa ka dartay hadda maxaa waxay indha dilacsadeen iyada oo lagu faanayo oo la barayo oo cadaawad loo abuurayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel markaasaa waxaa lagu leeyahay ninkii la oran jiray idaajaa markuu idaacadaha tago waxaasoo wuxuu sheegaa reer hebel ma sheego waana beentii ma dhegaysto dadku ka maqla waaba waxaa la yidhi qolo anigu aan ahay baa la yidhi reer siyaad baa la yidhaahdaa markaasaa la yidhi mid baa yidhi reer siyaad idinka iyo waalidkiina alla cadaab reer siyaad reer mudug buu ahaay markaasaa la maxaa ka rabtaa sidii dadkaan ahaa mid baa wuxuu maqlayaa marka wuxuu maqlayaa iyadoo laleeyahay saasaa idaajaa sameeyo saas reer hebel ma sheego isagoon weligii dhegaysan oo waxba iga ogeyn oo dhegaysan buu leeyahay haddii alla ku saas leeyahay anna markaasaan u sheegaa waxaan hebel soo adiga maaha hebel soo adiga ma waagi dambe waa iska daayay waxaan ku soo koobay af soomaaligu suugaanta soomaalida oo aan sheegay anigu 4.5 uma qaybiyo sida siyaasadda oo markaan hebel sheego kuma khasbani hebel kale oo ka soo horjeeda ama ay cod yihiin inaan sheego kuma khasbani maxaa yeelay suugaanta soomaaliduna horta wax qof kaliya lagu haleeyana waa ka weynta waana ka badanta inkastoo hadda ay gabaabsi yihiinba dadki wax la weydiin lahaaba taasna halkaasaan ku xirayaa waxaan idinku gowaabinayaa dhallinyaradiinaas afkiina inaad u kacdaan runtii suugaantiisa aad u kacdaan suugaanta aynan kala soocinoo reer hebel buu ahaa qarnigii 19aad dhintay reer hebel waxba kama oga maanta waxa weeye murtidiisa adaa ku raaxaysanaya adaa wax ku qaadanaya waa xikmad waa inaad u soo dhawaysaa ama dhegaysataa sidii isaga oo yani aad isku qoran tihiin waa inaad sida u fiirisaa arrintan markaa iyadana ha rumaysanin oo wax ka jira lama arko cid aan u exdo iyo cid aan ka exdo wax dan iigu jirta midna ma jirto marka waxba kala sooci maayo aniguna aad iyo aad u mahadsantihi